saraakiisha ciidanka booliska Puntland heer gobol iyo heer degmo ee gobolada Puntland ayaa tababar socon doona muddo ku siman 13 bari uga furmay kuliyadda tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo ee gobolka Bari. daafurka tababarka ayaa waxa goobjoog ka ahaa taliska ciidanka booliska Puntland, maamulka degmada Carmo iyo saraakiil ka socotay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee marka magaceeda la soo gaabeeyo loo yaqaan UNDP. muddada uu socdo tababarka ayaa waxa kor loogu qaadi doonaa aqoonta iyo tayada saraakiisha ciidanka, sida uu sharxayo taliyaha ciidanka booliska Puntland gaashaanle sare Maxamed Siciid Jaqanaf. tababarkaas waxa lagu qaadan doonaa kor u qaadista aqoonta saraakiisha, isbarashada saraakiisha, wada shaqaynta taliyaha saldhigga, taliyaha qaybta, xeer ilaalinta iyo garsoorka, xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, xeerka ciqaabta, xeerka ciidanka booliska, xuquuqda aadamaha human rights, buugga dishibiliinka, buugga xeelo joogga. muddada kooban oo halka la joogo waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto. Maxamed Siciid Jaqanaf ayaa ku booriyay ciidankan aqoonta ay barteen ay ugu adeegaan dadweynaha. idinkana waxaa la idinka rabaa maadaama aad ka timaadeen gobollo iyo degmooyin inaad waxa maskaxdiinna ku jira u soo bandhigtaan bulshada oo laga faa'iidaysto, oo jilalka dambe idinka dameeya ama qolooyinka dambe koorsooyin ku galaya waxay ka faa'iidaan aad reebtaan. kuliyadda nidaamkeeda iyo baalkeeda horaan idinku sheegnay, qaabka shaqada horaan idinku sheegnay, saacadaha shaqada la gelayo iyo baalka horaan idinku sheegnay. waxaan idinka rajaynayaa inaad u dhaganugulaataan, wax barataan. waxbarashada lagama gaboobo, qofku isagoo aqoontii leh oo gacanta ku haya haddana wuxuu u baahan yahay wax loo sheego. duqa degmada Carmo injineer Ibrahim Shire Maxamed oo ka hadlay furitaanka tababarka ayaa sheegay inaan loo baahnayn in ciidamada tababar loo geeyo dibadda, xilli buu yiri Puntland ay ku taalo kuliyad dabooli karta baahida ciidanku ay u qabaan inay helaan tababar dhammaystiran. kuliyaddan booliska Soomaaliyeed inay tahay kuliyad aad u qalabaysan, dhisan, nooc kasta leh, inay tahay nasiib darro inuu wadamada deriska u aadno tababar loogu dhigo. tababar in loo aado inay tahay nasiib darro iyadoo nooc kasta ay noo yaalaan, wax kasta ay noo yaalaan kuliyaddan waddankeena laga helayo meel nabada, wax kasta ay noo yaalaan. waxaan sidoo kaleeto ka codsanaynaa waftiga UNDP oo gacan ku hayn jirtay gacanta, haddana ay nala joogaan mas'uuladeedii, in waxyaabaha ka dhiman sida mataqaanaa waxyaabahan ay keeneen duruufaha dabayshu meelahan ay dumisay, in mataqaanaa ay wax nagala qabtaan oo dayactir ku sameeyaan rehabilitationba. sidoo kale sidii mar labaad sidii u shaqayn jirtay u shaqayso inay gacantooda ku soo celiyaan oo insha Allah la shaqayn mataqaanaa ay wada shaqayn soo celiyaan wada shaqayntii mataqaanaa ay la kacdo u shaqayn lahayd waxyaabaha xaqooda ku dhinaa. waxaan idinka codsanaynaa waxaad tihiin mas'uuliyiintii gobolada iyo degmooyinka amniga, xagga amniga anoo la hadlaya mataqaanaa saraakiisha, in casharadan aad ka baran doonto halkan aad ka faa'iidaysataan. waxaa sid mudan in tababarka ay barayaal ka yihiin khuburo u dhuundaloola arrimaha ciidanka iyo sharci yaqaano aqoon durugsan leh. ciidanka booliska Puntland ayaa kaalin weyn ka qaata ilaalinta amniga deegaanada Puntland, waxaana lagu amaanaa sida ay ugu guuleysteen ilaalinta ammaanka iyo soo qabashada dad ku lug lahaa falal amniga lidku ah oo ka dhacay deegaanada Puntland. kuliyadda tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo oo la aasaasay horaantii sanadkii 2005 waxa ka qalin jabiyay saraakiil iyo ciidamo tiro badan oo Soomaaliyeed, waxaana loo aqoonsaday hooyada ciidanka booliska Soomaaliyeed. si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horeysay oo tababar kor lagu qaadayo aqoonta iyo tayada ciidanka booliska Puntland oo ka dhaco deegaanada Puntland. Cabdiqani Cabdullaahi Cabdi, website-ka caalamiga ee Puntland, degmada Carmo, gobolka Bari.